war khabar weyn ayaa jira oo Arsenal waryaam Arsenal baa sumaysay Tottenham dhacdadii 2006 baa soo laabatay maanta waxa la soo wariyay ciyaartooyga Spurs cuntadii ay cunayeen baa la sumeeyay taasoo keentay ciyaartooyga kooxda waaweyn inay mataqaana ku xanuunsadeen sida Harry Kane waxaana laga baqayaa in ciyaartooyga ka tirsan Spurs sida Kane uu ku jiro inuu seegi doono kulanka Tottenham ay ku go'aamin lahayd inay Champions League ugu soo bixi lahayd kulanka ku go'aamin lahaydba in ciyaartooy maqnaanayaan taasoo la fahansan yahay marka hadii ay Spurs kufto oo ay Arsenal badiso in Arsenal mataqaana runtii ay Champions League u imaan doonto dhacdadan oo kale ayaa hadda ka hor dhacday sidan oo kale ay Arsenal iyo Tottenham isku hayeen waa 2006 ciyaarta ka hor Tottenham ayaa cunto wax loogu daray baa beriga oo ciyaartooyga Spurs ay ciyaari waayeen maalinka qaar muhiima kadib Tottenham waa laga badiyay maalinkaas Arsenal baa sidaan kale u badisay sidiina Arsenal Champions ku soo aaday haddana mar kale dhacdadii 2006 baa soo laabatay oo la leeyahay maanta cunto sumaysan ayaa la siiyay ciyaartooyga Spurs oo yacni ay ku yacni cunto yacni iyagu jira ku riday baa la siiyay baa la runtii waxaana la tilmaamayaa hadda in ciyaartooy muhiima seegi doonaan marka waxa la leeyahay Arsenal hawsha idinka ma ka dambeysay baa leeyahay walow Arsenal waxa shaqo aan ku lahayn laakiin Spurs cabsidii bay bilowday hadda koor wixii ku dhacay baa oo Champions u waayeen Arsenal kaga xoogtay baan hadda ku dhacay warkan waxa soo wariyay Gary Lineker oo dhahaya warkan waa joke ma hamuri wax kaftan ma waa series walow ay kooxdu beeninayso Spurs oo in leeyin warkaas waxba kama jiraan hayeeshe waxay warbaahinta ugu weyn Ingiriiska soo qaadanayeen habeenka in Kane uu ku jiraday cuntada taa maalinta iyadoo laga baqay xataa dhowr ciyaaryahan oo kale inay ciyaarta kama dambaysta u seegaan baa laga baqaya marka cabsi weyn baa jirta iyadoo toddobaadkan Tottenham ay doonaysay inay booskooda dhagweynaha xaqiijistaan iyagu waxay kaliya ku soo baxaan bareejo iyo gool inay Norwich la galaan Arsenal waxay ku soo bixi kartaa waa inay guuleystaan Spursna laga badiyo ay ku soo bixi kartaa oo Champions ku soo aadi karaan sidan oo kale ayaa dhacday sanadii 2006 labadoodu waxay ku dagaalayeen Arsenal sidan oo kale Champions League booska afar sare ugu dagaalayeen Tottenham ayaa cunto maalinta ka horeysay kulanka ugu dambeeyay horyaalka sidan oo kale cunto barnaamij cunteed bay sameysteen oo ay ku mushaaxayeen maalinta yacni kulanka ka horeeya xilliyaadka la soo afjarayo maalinka waxay u safarayeen West Ham iyadoo cuntadaas ay ciyaartooy Spurs ay sida maanta oo kale isticmaaleen oo kulanka ugu dambeeyay horyaalka ay soo xiri rabaan ay sidaas oo kale hadda korna sameeyeen cuntadii biliga ay isticmaalayeen way ku jireen qaarkood baa ku matagay qaarkood baa mataqaana yacni ciyaari waaye ciyaarta oo dhowr ciyaaryahan baa ciyaartii seegay taas ayaa waxay keentay in Tottenham laga badiyo ciyaartaas West Ham baa 2 gool iyo gool ka adkaatay halka Gunners 4-2 ku garaaceen kooxda Wigan sidaas baana booska Champions League looga galay Tottenham marka maalintan warkaas ayaa soo baxay runtii iyadoo Antonio Conte maalin wada ciyaartii Burnley markay ka badiyeen shaq gelinay xaaladaha Hugo Lloris iyo Dejan Kulusevski oo uu sheegay in mataqaana inuu xanuun qabaan marka kullay warkaas serious ka ayaa saacadii la soo dhaafay soo baxay Tottenham meelaha loo soo marmarayaa oo ciyaartoogii waa la galaya leeyahay maanta cunto baa la isugu dardaray oo runtii sumaysan baa la leeyahay calaa xal waa kaayo Arsenal waxay arkayaan wixii hadda ka hor dhacay oo kale bay arkayaan sidan oo kale bay Spurs ku waayeen Champions League inay ku galeen waana xaaladii oo kale haddana iyaga afar sare isku dagaalaya marka cabsida baa jirta Spurs habeenka walow kooxda ay beeninaysa laakiin ila xogaan waxay leeyihiin warkaas waa jira rag badan baa ciyaarta seegi doona toddobaadka kan Arsenal markuu u fiicantay in ciyaaryahan Spurs ay seegaan muhiima si ciyaarta looga badiyo Spurs iyana ay u soo gudbaan xilli Arsenal iyagu ku dhowda xataa bariyahan Arteta lagu eedeeyay inay ku dhacdo inkaartii Mesut Ozil iyo Aubameyang Arsenal waxa taala habaar labadaas ay qabeen baa yaala oo ah Arsenal dhibta waxay tahay ciyaaryahan dad u cimaamado oo dhaqaale badan aad siisay ma ku shaqeynayba Ozil sidan oo kale markii heshiis cusub la siiyay Ozil kii fiicnaa ma aha buu follow buu noqday Aubameyang markii heshiis cusub la siiyay buu follow isna noqday Arteta waa kan waxa ku dhacday uu leeyahay cudurkii ku dhacay labadaas nin ee markii heshiis cusub la siiyay in u halaabeen oo kale yacni ay waxtarkoodu hoos u dhacay baa isana hadda u muuqanaya ninka maaluuda hata khalad bay ahayd wax Arsenal ay ka dhici karaan nin aan kooxda Champions League u soo saarnay heshiis hol yiri micnaha taas dad badan ay ka cabsan waxay yiraahdeen war ninka maxaa heshiis loo siiyay hadda Arsenal markii ku dhawaa Champions League maaluud isbuuc ka hor bay ahayd wali ninka maxaa heshiis u siiseen ma sugtiin ilaa uu ninkan kooxda Champions League u soo saaro ma la maqlin warkii ninkan wuxuu yiri micnaha hadda idinka hadda ka qeynaysiin aniga saddex ciyaar xiriir markii la garaacay ayaa heshiis cusub lay soo bandhigay marka ninkan waxa ku dhacday leeyahay cudurkii ku dhici jiray ciyaartooyga Arsenal marka dabeecadaha taal waxa weeyaan ciyaaryahan fiican ilaa uu shaqadiisa ka qabsanayo heshiis siin dadka qaarna heshiis cusboonaysiinta ugu dartaba dadkan marka intay gaajihiin bay shaqaystaan laakiin marka heshiis cusub siisid intaysan heshiis cusub aadan siinin oo ay gaajaysiin bay isragaynayaan laakiin marka heshiis siisid way isla waysa saaranayaan Aubameyang saas uu noqday Aubameyang markii heshiis cusub laga siixay buu isdhigtay oo uu ogaaday Arsenal sii joogay waqti dheer lacag badan oo ka qaadanayo Ozil sidaas oo kale Arteta sidaas buu ku dhacday oo
اسبوع دhow way laga saxay durbana waa ka laba jeer xiriir baa kooxda laga garaacay waxaan sanadka ku dhaweynay sigan sanadkoodii shanaad isku xiga booskooda Champions League